safiirka waddanka Switzerland u qaabilsan dalalka Geeska Afrika, Mr. Jacques Pitlord, ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu inay dooran doonto sidii ay u aqoonsan lahayd Somaliland, isla markaana ay taageersan yihiin xaqa dadku u leeyihiin inay aayahooda mustaqbalka ka tashadaan. Safiirka Jacques Pitlord oo booqasho 3 maalmood qaadatay ku yimid Somaliland ayaa ka hor intii aanu shalay dalka ka dhoofin shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa. Waxa uu sheegay in aanu weli la gaadhin xilligii Switzerland ay qasab ku noqon lahayd aqoonsiga Somaliland, balse waxa uu daboolka ka qaaday in dowladdiisu ku dadaali doonto sidoo kalena ay ka shaqayn doonto sidii dhawaaqa Somaliland u gaari lahaa fagaarayaasha laga hago siyaasadda caalamka. Ambassador Jacques Pitlord oo suxufi ka tirsan warbaahinta waddanka TV weydiiyey su'aal ahayd waddamada reer galbeedku waxay taageersan yihiin banaanbaxyadii ka dhacay Liibiya, Masar, Tunis iyo dunida Carabta, laakiin Somaliland oo samaysay dimuqraadiyad aanu inta badan Afrika ka jirin may taageerin, iyadoo had iyo jeer qadiyadda Somaliland waddamada reer galbeedku ku riixaan midowda Afrika, laakiin faragelinta NATO ee Liibiya aan oggolaansho loo weydiisan. Maxay taasi ku dhacday? Waxa uu ku jawaabay, aad bay iigu adag tahay in aan ka hadlo waddamada reer galbeedka maxaa yeelay annagu waxaanu nahay dal gaar ah oo aan xubin ka ahayn midowda Yurub iyo NATO toona. Marka annagu kama mid nihin quwadaha waaweyn ee adduunyada, sidaa daraaddeed magaca dalalka reer galbeedka kuma hadli karo waxaan ku hadli karaa uun magaca dalka Switzerland. Waxaanu annagu si xoogan mar walba ugu dheganahay hanaanka lagu heli karo aqoonsi ahaan. Waxaanu aad u taageersannahay xaqa dadku u leeyihiin inay aayahooda mustaqbalka ka tashadaan. Arrintaasina waa waxyaabaha dowladda Switzerland u taagan tahay. Dhinaca kale, waxaanu aad u ixtiraameynaa shuruucda caalamka u yaala, waxaana jira dhibaatooyin mar kasta soo noqnoqda, tusaale ahaan tii koonfurta Suudaan oo kale oo la aqoonsaday, tii dalka Kosovo oo iyana duruufuhu qasbeen in la aqoonsado. Si dhaqso ah iyo si dheerba, dowladda Switzerland waxay dooran doontaa sidii ay ugu dhawaaqi lahayd aqoonsiga Somaliland. Si daacad ah haddaan u hadlana, mana hubno inuu yimid waqtigii lagu qasbi lahaa aqoonsiga, laakiin waxaanu ognahay in aanu marnaba Somaliland u oggolaan doonin inay dunto. Waanu ka shaqayn doonaa sidii aanu u caawin lahayn Somaliland. Waxa kale oo aanu ka shaqayn doonaa in codka ama dhawaaqa dadka reer Somaliland laga maqlo fagaarayaasha lagu lafaguro siyaasadaha caalamka, annagoo beesha caalamka kala xaajoon doona sidii codka reer Somaliland u gaari lahaa. Xaqiiqo ahaan, aad baanu ula shaqaynaynaa Somaliland, waxaynu isku dayi doonaa in aanu wax faa'iido leh u qabanno. Wuxuuna safiirku ballan qaaday in dowladdiisu ay taageero weyn ka geysan doonto mucaawanada iyo taageerada lagu horumarinayo dalka Somaliland, isla markaana xidhiidh aad u dhow oo wada shaqeynaya dowladdiisu la yeelan doonto dowladda Somaliland.